عن حسوستا دوري تومسنا كهر جماعة مقالة كبحذي مقالة دي مركي كبحين دتكي ويدا جيستين وين لا يابين وعيد هذا ور إنكوا دتكي وناكسنا إيه مساجد عمرة يباتهيني دتك حافظ دقني صلاة أنتكم بل قادوا جماعة أوجية إن أضيع يري أضيع درس كيجا أو تدبات تنجرة أو ولقي صلاة عن سوقلين أو خمر جنا عن هبين يمالون كلا سارين أيا إلى الدرسين هذو يبوك هنا هذو أركانه إني لا صعدنا دب عقب سنة وأولا دب بدنه أقل جزء شيء ده اللي جت المامية هيسوي شيء عنيك ويا واحد دباتين السوق قاعدنا إنك أزجرس مرحبا الباب كي بقرعه واشنتي قلب نمو سوى هردك السوق عاي قرضي خمر يقولنا مسك ودول الله اسلام ملء المملء وكل يجيبوا له دوري تضبط الجن صار بربريه ويكفر اسلام الباب كي بقوا كفري الى جماعه هاي مساجد كان كاسو بوقني وكسو زيارني ما زياره ها زياره وانا قناي وكادي يقول قولكي بكون نقد العجب بصوتها زياره دي وحمود يا ولد الطريقه ده صوفيه دي بريغو ريرا وزياره دي شكله كان اورنج ايه بس كده ما تانو ملنجا هذا حقيقه جيبوتي بس كده ما حقي مويان يا يبقى الزياره دي waxay isku badishay ilaahay dartii qofka loo ziyaaranaya oo waxa badishay ilaahay dartii ma ku soo booqano ku soo ziyaaranay waxa diyana kuma sidno waxa diyana kuma kaama doonayne khayrka jamaacada ka yar dhageysan wada dhageysanay markaasuu yaabay war dad lacag diida markay lacag ma qaadano wali inta noolahay waa qof lacag diida way ku weyn maxaa tihiin ma anako adeer lacag ma qaadanee laakiin waqtiga dadka ka qaadana waqtiga 20 milyan ma nasiin kartaa soo fariisto lacag diida maana arkay la yaab bay ku noqotay khamrigan halkan ay taala jamaacadna halkan iska fariisteen indhaha ka qabsadeen xayraad anako jamaacad waxaan martiya magaalada Hiilaayaan ka imanay dadka muslimiinta ziyaaranaynay ka bukaan u ducaynaynay ka dhibaataysan baan ogaanaynay dadka waaweyn waa soo buuqanaynay dhalinyarada masaajidka ugu yeedhaynay halkii hadalka markay uu furfurmay wax lacagna ma qaadataan ma qaadano oo lacagta ayay naga bixiya bil maali wal nafs bil maali naftaydi maalkayga ku soo baxay ilaahay marka kala hadal cadamadiisi aakhiradii noloshii dambe qabrigii qiyaamihii u fikray marka وعن هذا الكاد يقول لي ولقي ما مقلبوني ولقي واحد هذا الكاي لا سو غلا ما مقلبوني maxaad iga rabtaa nadariyo sheeg lacag wadi ugu diideen wax kala sheeg waxa ka rabnaa anagu laba qof aan nahay amiirkii iyo jamaacadii odayaashii miskiidkay joogaan inaad jamaacad u tagto soo salaantid bas intaas ka rabnaa ma intaa soo waan raaci darkii uu soo xidhay daladii khamriga halkii uu ka yimid quradii la socdo shaadkii jamaacadu uu soo raacay wuxuu salaad ma aqaan hal waxba ma leh iska weysayso weysa ma aqaano kana ku ag fadhiisana sidoo sameeyo salaad ma aqaano kana ku ag tukane sidoo isagu sujuudo soo rukuucan u rukuuc halka intii uu sameeyay ayay linear iyo muuzir iyo shaahid markiiba u dhigaan maqribkii baa lagu eedaamay dadkii xaafadu way daawanayaan ودي هبل ده ما أنت تبليغ مسكين كسوق ليه والتبليغ ما سوق لنا إلهي بس سوق ليه يا سوق شيء لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم علي النبي مرقو هذا الكا كلها دقال بودرة دقال خيبر بو النبي بودرة إنه صبا بيه يهود لكن النبي كذبها الله وحده علي وقو مين لا دقال لما بو كيدي لا سليد هيك نقولنا يا مرقابو النبي علي دقال سبو كيدي mid iyaga kamidoo sababtaada ilaahay ku soo hadeeyo ayaa geeligiisa casas kaga khayr badan maqsuudka qitaalku waa maxay hidaaya looga dal lahaa haddii dadku iyagoon lala dagaalamin ay diintii ka dhageysanayaan oo diintii ka qaadanayaan dagaal meesha ma imanayo ugu dacwa muqaddam ala kulli shay dacwada ka horeysa wax walba jamaacadu waxay raadeen waranaku ma soo galine ilaahay baa soo galiyay daaya salaada maghrib uu la tukaday bayaankii uu la dhageystay عشاء يجيبوا لا تكذي عشاء يجي سوق حبيب المسجد جي كانان هذانا صلاة دي فجر السوق اللي هي سوق صعود المسجد جي سوق عليه تضمن مع الموت السوق صلاة دي لازمي
dambigii ku jirana ka dhax baxay tiisi baa timado ilaahay waa ka manna qaatay wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakun baynahu wa bayna an-nar illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali al-jannati fayadkhulaha wa fi hadith nabi qula inta taakayn leeg markay naarta uga hadho ayaa ilaahay jalla wa ala qadarkii hor ugu qornaa ayaa la hormarinay dadna acmaasha jannada loo weecin toddoba maalmood buu cibaadaystay sidaa baa la rajin ilaahay jannada inuu ku geliyo laana khaatimad bay lagu hagaaji xusn al-khaatima waa shay ghaaliya annaka jamaa bari annaka khaarijina wadanada gaalada shisheeya ayaa la noo sheegay nin muslimo oo Soomaaliya laakiin meesha joogno wuxuu jiray 40 kilometer waa booqanay in odayo daadiisa ku qiyaastay dhowr iyo 60 jir markaas weeyaa jamaacada halkay ka timid xagga ay dalkii waan ka iman maxaa u timaadeen dadka muslimiinta inay soo ziyaaran bas ajiib وخرج ويا نيغا بخيا بالمال والنفس او فيزا ودنكن لما هلا سيد ku hesheen ilaahay baa bixiya رزقك هدوي ما دالكن وادمن اما عزك كاله بدلك كاله maxaa doonaysaa nimku jamaacadii miskiidkaas ay joogan inaan raaclaan doonayno tanu miskiid xad ma tagaawda xad maalmaha kalena salaadeedana ilaahay baa u guudi laakiin mar haddaad bari ma joogtaan waa xad aha waa niima guudi dalkii Soomaaliya warkiisa rabaad Soomaaliya hay kaale Soomaaliya warkiisa waa lagu seenay Soomaaliya islaamnimada u socono u muuqatee Soomaafka Soomaaliya u xiiseynaya hay la mari ashuu noo yimid maalintii dambe waan soo dhaweynay nasiib jamaacada waxa la socday oday markii ay istuhoydeen dadka Soomaalidu markii ay istuhoydaan mid qaraabadiisa isgarteen markaas markii hebel adiga la oran jiray ha maxaad ka shaqaysaa inaka wadankan shaqo ayaa anaka noo dhiibanayay guri shaqo ma jirtee laakiin jaamacad baa dhigtay oo dalkii markii la joogay nin jaamiciyaad ahayde aqoonta ku dhimanaad biirsataa maxay tahay bal sheeg wuxuu xiriirka labada dawladood dariska ka dhaxayaan bartaa ilaaga bixin duwal markaas uu ku yiri xiriirka hadii ilaahay naga dhaxay ma barataa markaas uu limay salaadeedu waa galab marka xiriirka hadii ilaahay naga dhaxay ma barataa markaas uu limay professorada jaamacadda ay niidhiga xiriirka hadii ilaahay naga dhaxay ma ka hadlaan iyagoo ma yaqaanaan markaas lagu waxba ma baran baa lagu yiri xadiiska maadan maqalu nabigu leeyahay a'maaru ummati ma bayna 60 wa 70 عمر الغالب كأمديدا buu nabigu yiri waa 76 inta u dhaxaysa adiguna waxa leedahay dhowr iyo 60 jir baan ahay inteed si noolan doontaa buu ka yiri salaadeedina waxa leedahay waa galab xiriirka adii ilaahay naga dhaxayna waa daciif kuwan wax ku dhigana waxa tiri xiriirka ma ba yaqaanaan sidee kula tahay buu ka yiri aw aqligaaga rushdigaaga hadalka siiro basiire jamaacadu u tiri laakiin ninkii habeenkii cishaay barku tugada gurigiisii buu tagay salaadii fajr isagoo alaabtii wato jamaacada u yimiday wuxuu hadalkaad igu tiraada maxay ka seexan kari waayay hadalka xalay igu tiraadeen waan ka jiibsan kari waayay daaciga markuu ninku dad wanaagsan u raaco ummada khayr u rajaynayo ummada wanaagayga ka fikirayo hadalkiisa ilaahay wuxuu gelinayaa taasiir saameyn buu hadalkaagu yeelanayaa hadaf soo islaaxaya ummadan islaaxiga ka soo qayb qaadanaysa qaylada aan qaylino ku badbaadeenayo inaan diinta ka wada shaqeyno wadaniyooda insha Allah oo hadii la inaga dalbo inaan diinta u baxno aan baxayna wada stunfirtum fanfiru bunabigu habeenka jimcaha markaska ka soo qayb gala kulanka diineed bifadli Allah azza wa jalla habeenkii dhawata jimcihi baan u fiirsado masaajidku waa buuxsamayaan hadii toole zamanna dacwadu waxay soo martay xillihe jamaacadu miskiidka markay iska taagaan laga kala yaaci jiray maantana dacwadu waxay maraysaa in maraakisti halka ay joogsato afka oo ijtimaaciyadii markii la halkan baa lagu qaban laba sano kadib meeshii yaraatay meel kale loo guuray meeshii way yaraatay hadda annaga Djibouti waxaan maraynaa meeshii saddexaad ijtimaaci u horeeyay 92 200 qof ka soo qayb gashay 10 sano ijtimaaci miskiid markii lagu qabtay magaalada dhexda xirantay miskiid kale weyn bay dawladdu ku deeqday dacwadii haddana kiina uu xidhmay kiina waa laga baxay banaankii magaalada loo baxay
بنانك المقالة سنة كان أفرتن كنا غفا كسوقا وش اجتماعي أفرتن كنا غف هرجع سنة وأدوكته والخير كابع نوبة حيا خير كما قدر صنع خير هذا على ده دقي استدين هذا ونكسن نقو شغال الدين هذا ونكسن بكسي في عن الله ينقوها فضل